بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوعا كسابسا ilaalinta midnimada ummadda. waxa wax laga naxo u eeg caalam alislaami maanta sida uu eeg yahay, iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku tilmaamayo ummadda muslimiinta inay tahay umma waaxida, keliya, ummad wada jirta, diin qura wada rumaysan, rabbi qura leh, rasuul keliya loo soo diray, qiblo qura u wada jeesata, sharci qura wada aaminsan, qaab qura u wada cibaadaysata, waxa bini aadam ururiya ee mideeya oo dhan iyadoo leh, iyadoo taariikh iyo diin iyo luqo iyo masaalix mushtaraka leh. waxyaabaha bini aadamku uu raadcaynayo inuu ku midoobo dhammaantood iyadoo leh ayay haddana waxay u muuqataa inay aada u kala durugtay oo wakhti hore isticmaar burburiyey, kadibna mabaadi' qaldan ay qaadatay, kadibna iyadoo dhammi sii burburtay. waddan waliba uu hadda sii burburayo, maca kuwii hadda thawraadka carabiga laga sheegayey oo aan qaabka yihiin wax lagu farxo aanu weli ahayn. burburkaasi islaamka haysta waa burbur aan odhan karo waa burbur sida xarka u galay, oo dadka badh waxa laga yaabaa inay siyaasiyiinta canaantaan, laakiin ma aha. siyaasiyiintooda kala jeeda oo kala durkay, bal ee culamadooda kala durkay oo durug badani uu dhex yaalla. shucuub ahaan bay kala durkeen, jaaliyad ahaan bay kala durkeen, oo xataa kuwa waddannada jooga markaad ka timaaddo kuwa halkan jooga, burburka xaggaa ka jira mid la miduunba xaggana ka jira. waxaa laga yaabaa dadku kuwa durugsan bay canaantaan, maxay soomaaliya u midoobi weyday, maxaa muslimku u midoobi waayey, maxaa kani u midoobi waayey. waxaana adkaatay xataa muslimiintii dabadda joogtay, xataa soomaalida dabadda joogta, in jaaliyad lagu mideeyo, iyagoo iyagu waxay cunaan iyo waxay cabbaanba haysta, iyagoo dad xadaaro kale leh la nool, iyagoo jooga dhul midnimada iyo ay macno samaynayso, dhul nidaam iyo wax lagu kala dambeeyo, ayuu awoodi kari waaye inuu hal jaaliyada yeesho. bale mararka qaarkood wuxuu awoodi kari waaye inay masjidka wadaagaan. waxaad arkaysaa yurub iyo north america markaad tagto, muslimiin sii kala jajabaysa iyo masaajid sii kala filqamayo sii kala baxaya. maxaa qaldan markaa? ciwaanka laydhiibe wuxuu ahaa ilaalinta midnimada ummadda. haddaan midnimadaba joogin maxaa la ilaalin? dadku aad bay usii kala durkeen. ususkii ama waxyaabihii dadka midayn lahaa ayaan la fahmin. walidaalik soomaalidu waxay ku maamaadaa maroodigu takarta saaran ma arke ta kale ta saaran buu arkaa. waxaa laga yaabaa dadka halka fadhiya inay arkayaan dee maantadan waa ogtiin soomaaliya dagaal baaba ka socda, dad soomaaliyeed baa isdilaya, tuulooyin iyo magaalooyin iyo gobollo iyo waxna way u kala googooday. dadka halka fadhiya waxaa laga yaabaa inay canaananayaan oo leeyihiin waddankii bay kala gooyeen, iyagoo iyagu 3 maqaaxiyood kala jaray iyo masaajid yar iyo wax yaroo malcaamad kala googoostay. sidaa ogeed mawduucan waxaan u arkayaa in wax weyni qaldan yihin, waxbaa qaldan, shucuubtan dhammaantood ka qaldamay. waxbaa qaldan ku saabsan tarbiyadeenni iyo dhaqankeenni.
cadowgaa eed badan la saaraya ficlan waa jirtaa dagaalka cadowgu isagu oo cidima diidana oo cadowgu si uu wadannada u gumaysto wuu burburiyaa laakiin dadku iyagoo nool lama burburin karee marka hore waa la takhdiiriyaa yacni ninka jaraaxa ee hiliblee wax qalaya ama dhakhtarka wax qalaya qofkoo nooloo soo fadhiyo wax dareemaya hadduu qalo dee uu ka cararayaa loo taageeli maayo laakiin marka hore waa la suuxiyaa marka uu suuxee isdhiibo ayaa la googooyaa farriq tasud qaybi suurtagal maaha intuu gaal iska yimaado ama isticmaar iska yimaado inuu qaybiyaa suurtagal maaha waa inay jirtaa dadkani inuu yahay qaabil lilisticmaar waa inuu yahay qaabil litafaruq dad aqbali kara inay filqamaan oo kala tagaan walidalik afkaar cusub baa lagu beeray caalam alislaami oo qowminimo leh oo wataniyada leh oo qabiil leh oo beliya baas leh afkaar cusub baa lagu beeray oo sharci iyo dhaqan ku saabsan afkaar cusub baa lagu beeray oo nidaam iyo ku saabsan waxa kan tusaale haddaan idin siiyo waagii hore muslimiintii hore marar bay ku dhacday inay dowladnimadoodii qaybsanto oo marar baa waxaa jirta khilaafadii islaamiga ahayd intay kala googoodo 3 dowladood oo waaweyn maalan Spain iyo dhulkan soko oo dhami ay dawlad umawiya ka talinaysay Baghdad Abbasiyiin ka talinayeen Masar iyo meelahan dhexe ay haysteen nimankii Faatimiyiinta loo oran jiray laakiin siyaasiyiintaasi waxay arkayeen shacab mida iyo dhul mida inay qaybsadeen ama shucuubtu may rumaysneen qadiyadatan taasi waxa dhacaysay qofka muslimka ee maghrib al-arabi ka taga indiyu minister ka noqon jiray isagoo meel laba ibn Battuta iyo ibn Khaldun iyo maxay sameeyeen ibn Khaldun xaqu ka yimi Masar iyo dhankan buu qaadi minister wax laga noqday ibn Battuta xaqu ka yimi bariga fog dawlad al-Khawarizmiyya gaarkeedii dhulkaas wax laga noqday يعني شعوبته مسلمين حدود ما لهن يدو الدولة ذي كليهين هذانا أي شعب كوحوار كي يدد مسلمة دول كنين مسلم لا يهي مسلم كنين مدي هي حد وحلا إلى هذين نشرين هدو حاجة شوغنا كاد دولة دي سورة عسسنا ومامل كان قال هذا صار هاي هدو سكجي ما ذكروا يمدنا كان دولة دي سورة عسسنا لكن كشعوب هم بارير مشرين إما كشعوب تلفت إذا لقى داعي هلا يا بينا ترى هذا كوا النبي جا ودن كان يسوق له وايو وقال مريكان يمت سعودية لبضوا بعض أديك النبي بكوي والله مد أدوك هذا سعودي قد تقتنع أن النبي باطي والله بصور رافع يا با معناه هذا حويا وح إسبدلي وهو حادوين مرك الله يقول عالم الإسلامي قالكوا أفكار تنعصب القلبية الناشناليسم كان ليجي ومدى مسلمين تي نيشن اسمه هانجري ناشناليسم وحلا يراهدنا ما يقولين قوميات ما يقولين وحي هاي المسلم نموقفوا أيضا تتجسوها إنه مسلم يهاي ما شو تقابلنا شريعة إسلام بلغنا قيامي كلا قد سنين لكن ده كان مركي لك لجوجوي أي قبل ولا بوحد رباينه ضد كيس كبر بارية إنه كجاريهين ضد كلا markaasa waxbarashadii iclaamkii wixii oo dhamay waxay ku salaysayn inay qofkan ku beeraan inuu ka duwan yahay kan ku xiga ee muslimka galku uu googooyay caalam islaami laakiin hatta si cadaalad uma googooyn waxaan cadaalad uga jeedaa hatta siday isu raaci karayeen uma gooynin xuduud wahmiya oo ay weligood iska laalaadaan oo aanay midoobi karin buu dhigay ولذلك markaad imka timaado منطقة الصحراء الكبرى موريتانيا مغربية الجيريا دول بايسكو هيا مركا تمادو ليبيا الجيريا دول بايسكو هيا تونسيا الجزائر دول بايسكو هيا موريتانيا هي مالي دول بايسكو هيا موريتانيا السنغال دول بايسكو هيا تشاد يا ليبيا دول بايسكو هيا مصر يا السودان دول بايسكو هيا مصر يا ليبيا دول بايسكو هيا سعودية يا يمن دول بايسكو هيا سعودية يا قطر يا إمارات دول بايسكو هيا كويت يا العراق دول بايسكو هيا maxaa keenay inta qoladan intan laga fujiyo qolada lagu daro qoladan in laga fujiyo qoladan lagu daro muhaatan intii israaciisaba israaciil
يعني وين يجرى بؤر بوق marka la taabtaba karto oo dadku wixii kale oo dhan ilaabo وين dadkani weligood kala laalaado maxaa keenay in kurdiga shan meelood loo qaybiyo waxay yiraahdaan waa marketkay ku iibsamaan suuqa hubka iyo warshadaha hubka haddaan dunidu istiilayno is haysan de warshada dhan ba xidhmaya raga hubka dunida soo saara hadday yiraahdaan dunidu nabad ha noqoto soo warshadahooda xidhmi maayaan waa inuu suuqani weligii furaada warka kooban waxaan leenahay burbur aad u tiro badan baa muslimiinta haysta natiijadana ilaahay wuu u sheegay maaha natiijo qarsoonayd oo la leeyahay ma ogidin ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay waatiicu allaha waatiicu ar-rasuul ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إن الله مع واصبروا إن الله مع الصابرين إلهي وحليه سبحانه وتعالى ورأى لي الرسول ضيع جدك سائد ودقاض يدمانتي هاي سقبصنين با إلهي سبحانه وتعالى وهدي سقبصك يمرنك بطان محان نتيجة طيب لا بشيء نتيجة وحويان فشل هو ضعفي تمر ضري iyo dawladnimadii noo tagtaba leeyahay watadhab ar-rihukum wa qaa'ida ilaahay quraanka inoo sheegay inuu ogeyn markaanu isgallo isdillo isku burburro natiijada soo baxaysa inay noqonayso inaynu tamar darayno oo ninna kaligu hadhow cadawga iska celin kari waayo iyo in ay dawladnimadeenu tagto ilaahay isagoo ina xasuusinaya buu wuxuu yiri wasbiru inna allaha ma'a sabirin wada joogu binaadam haddaad isu keento xagtin iyo xurguf lagama waayo binaadamku positive iyo negative ba uu leeyahay isu imaatinkiisa positive badan wanaag tiro badan baa ku jira isu imaatinkiisa laakiin waa basharo xagxagashadiisa iyo xurguftiisana wuu wataa dabeetana ilaahay wuxuu leeyahay wasbiru inna allaha ma'a sabirin war sabra xogaaga xurgufteeda dhex martiya waxa kan dulqaad iyo sabir iyo waayelnimo muujiya waaya inna allaha ma'a sabirin ilaahay wuxuu la jiraa kuwa sabra taariikhdii dadkii horena ilaahay uu inooga warramay tafarruq ku dhacay iyo aakhirana inaanay liibaanaynin kuwa nooca sameeya wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahum albayyinat wa ulaika lahum 'adabun 'adhim ba ilaahay war hal mid noqonina sidii kuwii kala tagay ee iskhilaafay iyagoo bayinadii ilaahay kitaabkiisa u ag yaallo soo lama midnihin iyadoo ilaahay kitaabkiisa yaallo oo sunnadii nabi maxamed taalo oo wixii wanaag sheegay oo dhami yaalin baynu isdillo kala tagno tafaraaruqna ilaahay wuxuu yiri kuwii sidaa yeelay hore wa ulaika lahum 'adabun 'adhim 'adab weyn bay leeyihiin filqankan iyo isdilkan iyo kala tagani adduunkana waxaad ku leedahay fashal iyo dawladnimo la'aan dhacfi aakhirana waxaad ku leedahay baa leeyahay cadaab weyn labada meelood midnaba badbaadi maysid marka ayuha al-ikhwa saashu waxay ka taagan tahay sidee baa loo midayn karaa dadka muslimiinta ah sidee baa loo ilaalin karaa kadibna midnimadooda تجارب وين بك فكر رسالة كوا يري هدي سورتوبي ويان كوا وين سورتوبي معايا هدينا أودي كري وينين المساجد وضلها إنه إلهي وتكنه هل مساجد إن وضع معمول الله سبحان الله مركي نجوجنا مساجد ده ركبة دستيولا هاي وقف كدفتي عندي بكم وقف سنشرين هل كان مركي إنه يرسكو درسنا مساجد يالناي وحين نقطيون ندعى كسكال الله haddaynu jaaliyad yar wada yeelan kari weyno NGO wada yeelan kari weyno ma waxay idin la tahay inaad dawlad wada yeelan karaysaan ama wax ka weyn wada yeelan karaysaan ama ummad islaamiga isu iman karayso waxani waa dhaqan iyo tarbiyo haddaad kan hoose garanayso kor baad u kici kartaa markaa laakiin haddaad salka ka burbursantahay haddayna shaahaba wada cabbi karin walaba maqaaxiyood kalena isay dawladda inooga dhaxaynaysaa waa waxaan caqliga gelin baad ka warramaysaa waxaynu u baahanay markaa inaynu dib u noqonno taariikhda inaynu fahmno waxay dhahdaan suquutu duwal
burburka dunida soo mara duwalku waa markay dadkeedu iskhilaafaan cadow sare way adagtay inuu dawlad jabiyo wuxuu cadow sare dawlad jabiyaa dad wada socda markay iyagu gudahooda ka burbursan yihiin waxaynu u baahanay inaynu fahamno midnimadu inay tahay waajib sharci oo diineed oo layna faray ilaahayna faray rasuulkiisina ina faray quraan iyo xadiidka ku soo aroorayna uu tiro badan yahay inaynu fahamno waajib caqli inay tahay caqliga saliimkii waxa uu tilmaamayo ilaahay qaar buu wuxuu ku tilmaamay inay kala tagsayin dalika biannahum qawmun la ya'qilun ba ilaahay wadulan caqli lahayn baa leeyahay sharci ka kaalaya midnimadu inay macna samaynayso caqliga yaqaana maxaa jira markaa sidee baa midnimo loo abuuri karaa ma shir baa lagu abuuri karaa ma kan baa maxaa lagu abuuri karaa waxaynu u baahanay kow baynu leenahay inaynu wacyiga afaafino midnimadu inay qiimo xadaari iyo islaamiyad oo diintu ina fartay inaynu wada fahamno oo quraan iyo sunna aad u badan ku soo arooreen waa wada qaybsantiin baa laga yaabaa iyadoo wadaadeen wacdiye inta goor uu yiri wa'tasimu bihablillahi jamii'an ama wala tafarraqu leedin waa haysaan laakiin idin ma martade waxaynu u baahanay marka inaynu fahamno kow midnimadu inay qiimo samaynayso inaynu fahamno fi shariica waxa jira mas'ala la yiraahdo alwalaa wal baraa alwalaa yaa mudan hiilkaaga yaad la koox tahay yaad sabari ka noqonaysa waa mas'ala sharciya ma reerkaagu ma isku walaatihiin ma jamaacada yaraad ka tirsantaa isku walaatihiin ma kooxda yaraa isku fikradda tiin ba isku walaatiin ma gobolka yaraa degantay ba isku walaatiin maya sharcigu ka kuma xidhin alwalaa li shariica waxa la yiri waxa isku kooxtihiin mu'miniinta iyo muttaqiinta iyo kuwa ilaahay rumeeyay waxa la ina barayaad baraagaaga ka qaadanaysa yaad ka durkaysa yaad ka dheeraanaysa ayuha alikhwa in badan baa maqasheen iyadoo culimadu axaadiis ay akhrinayaan nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraxumihim dadka mu'miniinta ay kalgacalkooda iyo isjacaylkooda iyo naxariiskooda waa sida jir qura baa la yidhi waa warkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam jidhka waxaa caadiya gobol ka mid ah hadduu ku xanuuno jidhkoo dhan wuu bukoodaa waa isku xanuun hadday cididu ku xanuunto iyo hadduu wadnuhu ku xanuuno siba kaarku ku wada qabanaya neerfayaasha dareenku isku sibay u qaadaan ma yidhaahdaan halkani qiimo badan male isaga waxba ha u xanuunsanay waa faryare waxba badan ha dareemin maskaxdu ma taqaano ama waa kaliye xoog u dareen ma taqaano meel kastoo nabarkaaga dhaco isku sibaad u dareemaysaa waxa la rabaa dadka mu'miniinta ah mid ku dhow mid ka dheer mid kula gobola mid ka gobola inaad isku si dhibtooda u dareentid waxa quraanku tilmaamaya innamal mu'minuuna ikhwa walaalku muxuu dadka kale kaga gadisan yahay hooyada ayaa abaha kay dhaleen muxuu dadka kaga gadisan yahay hooyada ayaa abaha kay dhaleen waa qofka waxalkiisa iyo magaciisa iyo maamuuskiisa iyo hantidiisa ku farax galiyaan dhibtiisa iyo kaarkiisa iyo mushkiladiisa iyo xanuunkiisuna ay ku kaariyaan oo ku dhib galiyaan yani labada dhinacba dareenkaaga cawaatiftaadu way la jirtaa hadduu dhibaatoodana waa dareemaysaa hadduu waxhelana waa dareemaysaa mu'minkaa lagu yidhi baa caynkaasiya idan ayuha alikhwa waxaynu u baahannahay cumuuman inaynu fahamno qaacidadaasi ah dadka mu'miniinta iyo walaagooda iyo baraagooda wuxuu yahay waxaan kaloo jecelayaa inaan mid idin tilmaamo islaamku sharci ahaan wuxuu ina faray inuu dawlad qura wada noqono muslim oo dhan dawla waaxida inuu noqdo sharci ahaan waxa la ina faray hal qaanuun oo qura inaynu yeelano inagoo kii wada haysana maanta maalan yurub waxay aragtay caalamkan cusub inaanay loolami karin iyadoo 50 milyan iyo 30 milyan u kala joogta marka waxay go'aansadeen yurub 450 milyan ba in la isku daro si bal ay loolanka dunida uga qayb gali karto laakiin waa 450 milyan oo afka kala luqa ah oo kala diima ah oo kala culture oo kala sharciya
dabeetana waxay u samaysteen baarlamaano iyo wax tiro badan oo shuruucda la isku dhaweeyo sharciga waxa hal la mideeyo sharciga waxa hal la mideeyo shuruucda marka la mideeyo waxa midoobaya wixii ka dhalanayay kumaankum khabiir ba meel fadhiyo inta wada wadan walba in sharcigiisa dib loogu noqdo la waafajiyo ka EU-ga inaga rabbu samaawaat ba midino soo dajiyay dhamaanteena mideeyay yani waxyaabo ugu fudud ee lagu midoobo rabbu samaawaat ba soo dajiyay midaynu ku wada midoobi karno halana waxyaabaha midnimada ilaaliye ee koowaad waxa kamida بعد العقيدة ومدنمضو waxay yiraahdaan ummadu markasta ay homogeneous group tahay homogeneous waa maxay bulshadu markasta ay soo eegtahayba waa markasta xooggeedu sii bato yani markasta isku afkaar isku aragti isku wax wadaagto xooggeeda sii bata markasta bulshadu afkaarteedu ay tira badato kala gadisatana dacfiga iyo khalalka ku bata saadaradeed bay dawladuhu waxay samaysteen wasaarada dhan oo ka shaqeeya inay dadka isku aragti ka dhigto waxbarashadan qasabka ay maxay samaysaa 9 years baa la qof waliba waa qasab inuu wax barto iskuulkana tago waa in dadkan software isku mid ah lagu shubo hardware keenan kala gadisan ayaa waxa lagu shubayaa software isku mid ah si aad isku si ugu shaqeysaan 9 years education kan waa in midab qura dadka la wada siiyo adigu midab quraad leedo diina oo rabbina wada siiyay kitaab qura la inoo soo dajiyay qaanuun qura la inoo soo dajiyay عقيدة عبادة وحاصل بين وداقنا كمجتمعهان وحين وبهن قضايات كوبهن إنه مدنمض اللغو إلى ليه وحوه الرياء العدالة عدالة وواحد بني آدم كالدقيقة بني آدم كهنتيدو ما دقيقه وهي كاد وحسيسين ذكر بسمه يعني ما قنعه هنتيدو ما دقيقه مناصيبته ما دقيقه بني آدم كواحد دقاء عدالة وحو دريما قفكو حقوق دي سين أنا كم مغنين وهليه عدالة هو شيء قيمة إسلامكو وكردقي إن أنا حتى عدالة قال يا مسلم يدي مهما كان له عدالة هو عدالة إلهي القرآن كوحو لي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا إلهي وحليه سبحانه وتعالى وردتك إيمانك لغيها ليوم كونوا قوامين بالقسط عدالة كوكع إلهي درتي ومرخاتي فرع حتى نفتا ذا والد كاهدو يكو كو قرابدو آيضة أبياشو دي هراكو قرطي هارفارد يونيفرسيتي جامعة نقول مريكنكا كلية القانون وعنوانك كويالا تذكر دمبينان القرآن هم بلغيا بينكم السلمين لكن آيات ما عنوان ودقن بلدي هوري وليبل كجامعة داس قانون كذا كلية القانون آيات بالليبل واه إلهي بين السيه سبحانه وتعالى إلهي بين له ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إلهي بوحو لي صحابة مكة لغا ساري إلا قراعي إلا فردية إلهي لها الله ربي وحو لي يدن كلفين إن مساجد كالليدين ديدي مسجد الحرام إلا إذن كساروا الليدين ديدي إن حد قدبتان يدن كلفين با إلهي لي يبا وكوين وحد قدباتنا مركا قدات كالراسي هدا كان سيسطا ما شرع الإسلامي ولذلك بقى إلهي وحلي سبحانه وتعالى عدالة سبيل لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى الصومالية دو قبيا يورير كودا ملا وحكا شيغان يي دقيدي مامل كوها يسيبا وحوت الماميا رقع عدالة وايا سيدي عوشك ليا عيبين يعني رقع وحا أروريا بولي وعدالة كو waxay leenahay hadaad rabto midnimo aad ka fakarayso intaanad midnimada ka fakarin iyo ilaalinteeda waxaad ka fakartaa cadaalad inaad samayso laba inaad naxariis ku darto hadaad naxariisan kari weydo dadku ma wada noolaan karaan dadku qaanuun qura kuma wada noolaado inuu soo naxariisto iscafiyo isu tasaamaxo walidaalka ilaahay markuu sifeynayay saxaabadii nabi maxamed
waxaa ilaahay ku tilmaamaya muxamadun rasuulu llah waaladiina macah ilaahay muxuu ku sheegay ashidaaun cala alkufaari ruxamaa'un baynahum taraahum rukacan sujada saddex sifaa ilaahay ku sheegay cadowgooda iyo gaalka waa kuwa iska celiyo ku adag dadka mu'miniintaana waa kuwa u naxariista baa ilaahay yidhi rabbigoodna waa kuwa u cibaado badan saddex sifaa la tilmaamay mid rabbigood bay kula dhaqmaan midna basharka rabbigood waxay kula dhaqmaan inay cibaadadiisa badsadaan oo habeenkii iyo maalintiiba sar joogaan oo tukanayaan basharkana kooxna inay iska dhiciyaan kooxna inay u naxariistaan kooxda gaalada ay kasoo horjeedaan inay iska dhiciyaan kooxda mu'miniintaana inay u naxariistaan qodobka labaad ee keena inay midnimo ilaashanto waa in dadku dareemaa mujtamacu waa inuu dareemaa maamulkan inuu isagu leeyahay kaasina wuxuu ku iman karaa markuu dareemayo inay shuuro xaqiiqiya jirto wadatashi xaqiiqiya inay jirto hadday maalinba intay kooxi albaab meel ku xidhato ay soo baxdo tidhahdo annagaana madaxweynihiiya annagaana wasiiradiiya intaan annagaa doornay intiina kalena waa qasab midnimada ka soo horjeedaan haddaan raaci weydaan waar inaa waxna weydiisaan bay ahayd horta intaanan ka soo horjeesanin maaha ummad saa ku shaqayn kartaa ma jirto yaa midnimo yaa wax la weydiinaya dadka badh baa waxay isleeyihiin inta caqliga badan iyo culammada iyo intaasoo qodhaa wax la weydiinaya maya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo dagaal galay oo dagaalkii saxaabadu ay sababeen sababtii lagu jabay iyagoo ay lahaayeen oo la jabiyey oo raggii jabay uu intuu goobtii ka cararay orodkii badh uu magaalada madiine ku galay waa ghaswatu uxud ayaa ilaahay qur-aan soo dejiyey qur-aanka maxaa lagu tilmaamayaa marka hore tashi buu nabiga la galay nabiga taladiisu waxay ahayd in madiine la joogo calayhi salaatu wasalaam maye taladii waxay u badiyeen dadku in laga hortago gaalada oo aan madiine la joogin meeshii markii la yimina qaabkii uu nabigu dagaalka u galay niman baa mooday in la guulaysto ka soo daadegay buurtii ay ilaalinayeen dabeetana gaaladii way dabamartay se waa la jabiyey muslimiintii markii la jabiyeyna rag baa jabay oo rag badan waa la laayay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nabarraa lagala daalay god buu ku dhacay adeerkii dee beerkiisaaba la cunay inta la dilay oo tamthiil lagu sameeyey la googooyaa beerkiisa lala baxay saxaabadii badh badan baa cararay toddobaatanaayaa dhintay ilaahay baa qur-aan soo dejiyey tilmaamaya mas'alada wada tashigu halka ay diinta kaga jirto ilaahay wuxuu leeyahy fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan ghalida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إلهي نحريس حقي سكتبون بدتك ونحريس تابع ربي لي دad mid dabeecad xuno aad adag ahaan lahayd oo qalbi engegan dadku waa ka carari lahaa rabbi subhanahu wa ta'ala ee way gafeen saxaabadan iyo iska cafi ilaahina dambi dhaaf weydii arrinkana kala tashaba ilaahay leeyahay nabi maxamed cidna kama aqli badnayn oo rabbi baaba doortay waxyaana ku soo dagayo samada uga imanayay oo ilaahay baa la hadlayay oo jibriil soo dirayay haddana iyadoo intaas soo dhami jirta ilaahay wuxuu yidhi dadka la tasho washaawirhum fil amri baa ilaahay yidhi taa macnaheedu waxay keenaysaa ninkan taladiisa beri hore lagu jabayo waa liitaa iyo waa kan ma dhacayso ummaddu waa inay tala wadaag lahaataa dadku inta aanad ku qancin in dadku wax kula leeyahay waayo qof baad rabtaa inaad masiirkiisa ka taliso noloshiisa oo dhan inaad ka taliso waxbana kaagama ogoli waanaan kuu talinayaa ma jirto caalam alislaami intuu cadaaladda ka fogayay markaas inta uu garan la'yay wada tashiga guulaysan maayo والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون إلهي صدقات يا بزكدي وحي لمدي صلاة دحديدي بوضة تشقى قلي وهل يري مؤمنين الرب أغبى شيء وقوة صلاة دوغة أرنكود وضة تاشق صعدة الزكاة بحيالي يعني الزكاة هي صلاة دحديد بلدشي انت عيد الربطين يددك أفضوبته ولو كتابا لسيدنئه داد سكيني كريميس بنادم كو حوليين لا ودا تشده waa waxa midnimada ku timaado midnimada waxa lagu ilaaliyo waxa kamid ah xusnul khuluq bulshadan in la baro dhaqanka fiican
dhaqanka fiican waa maxay diintu waxay ina faraysaa bulshada qaabka loo tababaray loo tareengareeyaa wuxuu ka qayb qaataa dadku inuu wada noolaado iyo inuu kala durko wadanadan ay joogtaan waa aragteen sanawaadka sagaalkii aynu nidhi waxa lagu dhigtaa iskuul qasaba dadka waxa la baraa how to behave waxay leeyihiin science ma waxa la barayaa iyo cilmi baa waxa la barayaa waxa weeyaan dadka sidoo la noolaan lahaa qofka wax ku qabta thankside naitak يعني waxa la baray qofka kan eray fiican inuu bulshada ku isticmaalo walow hadhow waa gaale ay saxantaan ama iscaayaan ama xagga dambe wax iska sheegaan laakiin markay wada joogaan war fiican bay yiraahdaan quraanku wuxuu ina barayay sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam akhlaaqiyadka fiican oo dhan inaynu ku dhaqanno waayo mujtamac afini dad colo midba mid farta ku godayo dhaqanka Soomaaliga waxa kamid ah hadduu xataa toos ku caayi kari waayo kaftan ku isku dayay inuu kugu jareexeeyo waan yara jareexeeyay buu oranaya kafta ku raba inuu kugu mudo waa dhaqan xumo yani waxay ahayd qofkan inaad soo dhaweyso inuu noqdo asalka diintu waxayna baraysaa salaamatu sad laab xaadni arab fiicni alhub wal-ithar markuu hindhiso inaad alxamdulillah yiraahdo inaad tashmiit al-aatis markuu bukoodo inaad soo booqato ka dhintay inaad meyd ka raacdo hadiyadka inay sasiisaan waxan maxaa loo jideeyay waxan waa waxa midnimada keena laakiin nin waliba intuu khudbad qabsado hadduu reerka kale ku mudo yiraahdo waxaas socon maayo qola waxa sheegaysaa saas socon mayso sida laguma midoobo yani hada la isku mudo reer lagu mudo group lagu mudo koox lagu mudo aynkaas ma keenayso mar raba inay midoobo asalku wuxuu yahay shariicada islaamiga ah arabka qofka muslimka inuu dhowrsanaado dadkana war fiican inuu kula dhaqmo xagtintana inuu joojiyo hadii la xagtana inuu isku dayo inuu cafiyo waa akhlaaqiyadka keena in la midoobo waxa keena baan leenahay in la midoobo nidaamka dadku ku dhaqmaya inuu noqdo nidaam mulaa'im ah u cuntama andimada basharku uu dhigto nidaam kasto bini aadamku uu dhigto positive iyo negative ba uu leeyahay laakiin waa sida loo isticmaalo waan la isku dayaa wuxuu inuu noqdo wax mulaa'im bashariyada u noqon kara dibaan ugu soo noqon masalada hadaynu u baahno waxyaabaha midnimada ilaaliya waxa kamid ah in dadku aqbalo xiwaarka iyo wada hadalka hadiiba muran yimaado hadiiba wax la isku qabto hadiiba wax dhaco in laga wada hadli kara in la aqbalo oo bashar nabi maxamed alayhi salatu wasalaam ilaahay gaalo aan ilaahay ba rumaysnayn ayaa la leeyahay la hadal oo la dood jidaal muran la gal xiwaar la gal dhageyso gaala way manayso war aan la aqbali karin ku akhriyeysay markaas wala faraqta minha ya abul walid isagoo kunayadiisa ugu yar ma dhamaysatay hadalkii xataa aanu lahayn waraama waxaad ku hadlaysaa wax ma ahayn isagoo qurun ku hadlayo nabi maxamed ka guray ilaa waa talada intuu garanayay kadib uu sheegay wixii xaq uu arkay ama xaqi ku soo dagay waxaan leenahay hal ikhwa waxaynu bulshada ilaalin kara waa waxyaabaha saynu soo tilmaamnay oo ah isu imaatinku inuu ku dhisan yahay wax lagu wada noolaan karo lagu wada joogi karo وعدالة له وشورى يتلوداق له وأخلاق يدقم في عن له وحوار يوضا هذا يوضا طش له وحا مركا الله لو حد عكرتين دتكم مدوبه تامعنا يدو ما هين دتكم ملائكة نقونوا يان مراني منكرين أمان لسقابان كرين أمان كان وحنو بهانين نفهمنو ورهديبا مرندعه سيلو حلله ما هلكو قبياق الصومالية شيء يبا واحد داول لو قد يسوي دليل عيد ما هبود يعني إنه أرجعنا ونهدين نسقبنا ورن كي يمين أتلاهضه مسقاب كلو حلو حل لباشرة شرع الإسلام وحين برطي 3 ways صدح سببات صدح قاب or reconciliation قد بني آدم كلا سمعيه دتك هشيسين تيس الله سمعيه وهديبا جماعة دي مسلمين تهيد ما أمدي مسلمين تهيد مرن وكرح دعوه ما حلقة مرن كهدين اسكمري وينو والله صدح مدون بيع علماء ذوي هذا إن نقاضنا طريق العفو والمسامحة
inaynu iscafino oo cidi Soomaalidu waxay ku maamaan haddaan la kala roonaan roob ma daa bay yiraahdaan yani waxay uga jeedaan labaduba waa isla dhintaan cafigu quraanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa binaadam wax lagu sameeyo dil baa ugu badan faman ufiya lahu min akhihi shay'un ba ilaahay fattiba'un bil ma'ruf faman ufiya lahu min akhihi wanki wax dilay baa leeydi ninkii loo cafiyo dhigi walaalkii wax kamid ah intuu wax dilaabaad cafin kartaa iska sii dayn kartaa haddaad dil cafiyi karto wax ka sokeeyana waad cafiyi kartaa haddaad dil cafiyi karto wax ka sokeeyana waad cafiyi kartaa ولذلك القرآن وحي نوت المام يا نبي يوسف وريركو دي كلا اللومي إسقى قد لقول ردي ولكن سوينا بيسكت جاي وضجيبا يندبالي كوح كلام ملك دعدي ريركا وحكو أرورية لما السبب هذا قرا عفة اللسان بين هذا عرب يسوي إلى ويجو هذا الكم مدمود يوله إن يسرق فقد سرق له أخذ من ولكن بهرتو جوا هنشري بين هذا إلهي وحي hoos buu u qarsaday Yuusuf naftiisu ku qariyo muu cadaysan hoos buu naftiisa wuxuu ka yiri idinka ka shar badan nimankii godka ku riday ba hadana kule tuug baad ahaan jirtay iyo waan garanaynin waa awoodi karay madaxweynuhu hayeen ilaa la xidhxidho kuwan iyo inuu eraya adag ba ku yiraahdo ee xataa wuxuu ka ilaaliyay eraya adag ay wuxuu rabay reerkan si uu midan kara idan ifatu lisan arabkiisa uu ilaaliyay iyo alaf isagoo dhaafay la tathriba alaykum al-yawm ayu ku ururiyay idan koow reconciliation ka umadu hadii muranku uu ka dhex dhaco waxa lagu ururiyaa waa in afwi la helo iyo musaamaha kalabaad ee dadka lagu ururiyaa wuxuu yahay in la helo al-musalaha wa tanazul inay dadku aqbali karaan maslaxada sare ee weyn ilaalinteed daraaddeed in la isu tanaazulo نبي محمد عليه الصلاة والسلام ويلشوا ووها متكمد أبو حوري إن ابني هذا سيد إن كيجا كريوا سيد سيادة بالسي سيادة بحقوق هلا وحنا النبي يقولي إلهي بقى عندي سوي حقوق إصلاحنا يا لبا ومضات هو وين ومضى إذا كمدها الحسن بن العلي محسمي خلافة دي دقال كبر كل عمرك هذه بطي وحاقبلين وتنازله ورمعاوية واحد دون يسوم الحنيمة معها هذا كان تنازلي واحد يسكو قبطان مصالحة هي تنازل لبدا والله سبحانه لأنه قفوا كبودة تنازله هي مصالحة إن السماية وكنا وحكنا كعو كنا وحكا كعو وما اللي حلا يسوي ماته ينوى باب كلا باب المصالحة والإصلاح بين الناس وباب لباط oo ku saabsiisan qaabka ay dadku u heshiiyaan baabka saddexaad ee ilaalinta midnimada ummadda lagu ilaalin karaa waa al-muhakama wa at-tahkim binaadamku weligii ma kala laalaadayo waan loo garnaqayo la kala gooyaa fi shariica aslan culimadu waxay yiraahdaan qaadiga markay cid isula timaado waxa fiican inuu cid u diro yiraahdo barorta muslixama laga dhex raadin karaa waayo waxay yiraahdaan qadaagu nooc min al-iham buu keenaa si qalbigooduna uu sabadadka hadii la heshiisiyo inta gorgortabaan qofba wax ka tanaasulo heshiiyaan hatta xagxagashadii laabtu way ka baadaa laakiin haday taasi dhici weydo shariicadu waxay noo ogoshahay in dadka la kala xukumo oo inta la kala xukumo xukumka macnihiisu waxa weeyaan dadku inaanu weligii kala laalaadin xukumku mar walba xaq ma sheego laakiin taawsano dadka badba wax laga yahay waxay dhaayeen waa la xukumay laakiin yeelimayno cadaalad maaha war waxa caynka la yiraahdo ma jirto dadka wax xukumaya inay cadaalad ku xukumaan ba saaran laakiin nidaamka qadaa'iga wax loo xukumaa ijraa'aat buu maraa ijraa'aadka haduu maro waa lagu fulinaya nabi maxamed baa wuxuu ku leeyahay saxaabadiisii war waxa laga yaabaa ina kaysi keentaan oo la'alla ba'dukum alhanu min ba'd buu nabi yiri waxa la arkaa badkiin bad inuu ka carab kaaftahansay ka hadal yaqaasay ka sheegan ogiyay adigoo xaq alaad marxaatiba waayay kartaa maxaa ku soo haray inuu dhaarto waaba faasiqo waliya bilu maray maxaa tala way go'day xaqaaga aakhira mooyaan halka wax daba kuma yaalin
يعني قضاء هو النظام أهدتك يولي صدنان بو قضاء أصليا كسلسي نعم عدالة كسلسي وان كورمي لكن أصليا وحو كسلسي هي ضدك ولي إنانو صدنان إن لك على الرياضة إن قضية يالة ما لا يكون انتهوده إسعافي منه وهشين منه وأن لك على حكومة مايو معنى يدوام حي مركادي ونووي ديتاسي ما دعي كرتو بني آدم كقابو وضع نولان كرو ولذلك محاكمته قبيجيد به waxay u baahan tahay inaynu marjaca isku waafaqsanahay oo marjaca maxaynu isku waafaqaynaa ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay ayyuha alladina aamanu atii'u allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayr wa ahsanu ta'wila ilaahay wuxuu yidhi war kuwa iimaanka laga helayo alla iyo rasuulkii ateeca iyo ulil amriga madaxda laakiin haddii baa murantaan maca madaxdaad la muranta waad qanci weyde maxaa xal ah fain tanaazactum fi shayin farudduuhu ila allahi warasuul baa layidhi wixii murana ilaah iyo rasuulkii u celiya marjac ha jiro mar kastaba dadku uu ku kala bixi karo oo ah shareecada islaamiga هل حبان ينادن حسوسين يا نكال شريعة وحيابي قرتل وكلا بحمر كا وحا كميدا متفق عليه الناس يعني شريعة كسور جيدين مثلا ساج كان ينشوغنا أما هل كان ينشوغنا لا يحير باو قران أو نظامية وكو قصبنت لا يحدا مرهد اللود شيء يضل وكلا بحيا دتكو وحا يسكو اتفاقان نظام دولتات هالنقطة متكسوك أي هالنقطة هشيس هالنقطة تجارة هالنقطة شركات وحدة جسر هالنقطة بن آدم كوحر دكتور المسلمون على شروطهم دون النبي عليه الصلاة والسلام سمالدو ما أقبشوا وحيا لا إن لا وضيال بالله صار عقلي وذا كلهم ما صعنسوا دتك وين مراجع وين تشرا وحلون نقنا يوم مركل لك على جرما يوم وحلون نقنا يوم وين لسكوا فقصي مثلا وما ضوضم وضاله الدولة كوضة ترساني قانون كوضة كيال بيسكوا فقصين الله نقضه إلا ما ورنا يقانون يلا وضن كله لو كله حكومة كم بالو حكومة يا كم بمرجعوها مسلم كم حمرجعوها وحمرجعوها كو كتاب الله يسوع النبي النبي عليه الصلاة والسلام لبا وحي أي دكتان أن لبدا كسور جيدي المسلمين على شروطهم وين كانوا كلا صارا كلبات وين يدتك كلا صارا أنا نقدر ضد أهل الثقة هو أهل العلم والتقوى ضدان يا عقل حمل قلته ما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلهي وحولي هدي عليان رسولك يا أولي الأمر وحا قرن لها أرك كان قوة استنباط كصمين كري يعني دتك أهل عقلك وين النقضان دتك كلا صاري أيها الإخوة sida sax ah marka waxay tahay usuusha lagu midoobayo marka hore midnimada mabda'eedu ku dhismaya waa inay noqotaa usul sax ah oo aan gudaheeda ku wadan wixii burburin lahaa waa inay usuushii islaamka noqotaa waa inuu xaq noqdaa waxaynu ku midoobaynaa waa inaynu garanaa dadka la leeyahay midoobay inuu mu'min oo dhan yahay aqeedadaas waa inay naga dhaadhacdaa aqeedo u baahan inaynu carruurta ku tarbiyayno ku korno ku weynaano أيا كانت قبيلته أو جنسيته ومسلم دتك مسلمين تامركا waxa haboon intii la ururin kara in la ururiyo ma ahayn xuduud isticmaalka oo qura la eego waa khata عظيمة حدود الاستعماريه وخطا عظيم لكن ده مريون كرنو مر قرا dad aan istabiskeedii la qaadin cirka kama wada midayn kareen waxaynu u baahanay waxaynu ku midaysanayna waynu noqdaa mabda'a si rabbi subhanahu wa ta'ala u keenay waynaynu dadka ku baraarujinaa midnimadu qiimaha diinta ku leedahay iyo tafraaruqu qiimuhu diinta ku leeyahay ilaahi subhanahu wa ta'ala badar oo ay muslimiintu guuleysteen oo meel sare marayaan ayaa muran yari ka dhex dhacay سورة القرآن كي إلهي سودة شيء بدر كورميس سورة الأنفال وحي يقول لها يا رب الله ما تلمامين هرت مورن كودا لا تلمام يسألونك عن الأنفال قل الأنفال مورن كودا لا ورمي ولا يلي فاصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم
وين قرنا اسقبسيغا iyo muranku inuu khatar yahay wa tarbiya u baahan in dadka lagu rabeeyo inagu waxaynu ka fakarnaa ugu horeeya waxa weeyaan waa laga gardaray hal uu kala tago arrin halkaas ka bilaabay waa laga gardaray marka wuxuu waa inay burburaan usluub kale miyaanu jirin haddii aynu qaadano mabaadi'da inaynu midownay xagxagashada akhlaaqigeena aynu ka ilaalino oo ah dhaqanka islaamiga fiican ee aan qofna mudaynin qofna ku gardaroonayn ku dhaqanno iyana waa wax isu soo dhaweynaya dadka isu laab xaadhaya waa wax dadka isu dhaweynaya oo isu laab xaadhaya qodobka saddexaad ee ka hadlayna wuxuu yeesana hadiiba muranku uu dhaco asaaliibta wax loo xalilo waa inaynu marraa waa inaynan xoog ku xalilin inaga warkeeno dhimo waxa weeyaan waynu isqabanay haa soo waa murannay ma aha ama waan ku muquunin ama waad muquuninaysa tala kale ma taalo xoog inaynu isku muquunina mooyaane tala kale ma taalo qofka muslimka waxa layna baray dilkiisu inaanu banaanayn dilkiisu inaanu wax fudud ahayn dunuubta ugu waaweyn ee muslim galay inay ka mid tahay sida ogeed waxaan jeclay warkaba inaan koobo wax la qaadan karo uu noqdo usuushii midnimadu waa qorantay usuusha tafaraaruqana quraanka ka warramay mesela fi suurati al-hujuraat 13 shay oo tafaraaruqeena ilaahay suurad kula ku wada tilmaamo 13 shay oo dadka kala kaxayn kara fi suura waahida ilaahay ku tilmaamo idan hadaynu quraanka akhrino waxa furqada keena uu ku yaala hadaynu akhrino waxa midnimada keena ee aqeeda ee walaa sharciya ee akhlaaqiyat waa ku yaala ee nidaam ee dawladnimo ah hadaynu eegno mushkilaadkiisa sida loo xalilay uu ku yaala waxa inaga maqan waa maxay waa inaynu isku rabayno ku tarbiyowno ku dhaqanno xagga sarena waxba ha eegin siiba qoladiina Yurub joogta yani tusaalahan bixiyo waxa kamid ah Yurub iyo North America haddii adigoo waxaad cunto haysta waa ninna bariskaagu kaaga xidhnay ama xoogsan kara ama dawladdu ku siinayso oo nabad haysta oo guri adeegta haysta oo noloshaadii oo dhan ay inteeda badan secure tahay haddaad awoodi kari weydo inaad walaalka kale oo muslima jaaliyad la yeelato ama masaajid la yeelato oo maxaad u canaanaysaa kaan intaaba haysan in isagu bariiska ka dayay meesha يعني وعقل قلوعة إذا وحق قلوعني كحاجة أشوجا كما قلوعنا إنه وينك قلوعين قاب كأنه كرّي ودم بقلوع كتيرة قاب كان إنه نق من ودم بقلوع كتيرة هذا إنه تنكسر قلوعة سجدا سيك لجورة يوروب كويا لما نورث أمريكا كويا هلا يا بنات هذا سوماليا كلا جورتك قبل النقطة ومساجد بعد كلا رمي سالم حد قبل كلا رمي سالم أيها الإخوة وحد الله دي بفكرها باهي عيد إنوغا باهي بدني ما جرتين إنو ميدونه عيد إنوغا باهي بدني ما جرتين إنو ميدونه وذا دي يوابين بس كتر وحنو باهنا إنو ميدونه سيدبه ميدونه وحنو باهنا أصوش اللي ميدوبه إنو رعنا وحنو باهنا هدين مرنه سيد الله كلا بحير إنو مرة وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين